نبى يرديح قعمت هو الرجال الدريبي كفتن لما نبى لوجود تجيب يرديح حضور فردا صومالي هندي كذا لوجود ماشي معاك كمان إيسا مرجع سوري جناعسي بان كير جيلنا يا بيقولوا أدول علا صومالي كذا معاك كمان إيسا ترانزيت بان هاي نبي يقول صلي حاجة مرجع وزعنا بالشيء ورماشان كفي عنها إنك والدين تويان إن شاء الله هذا وضيبا إنك يسكويري أبا أنت أو سنان مصاريف كسينة يه بل ما أنت كل شلن أبا إيكين بكير كل شلن ديدت كاغان ربا إنا عناه كوي روعي المقالو ولقي شغاء نركن هذا الكويدي ونكوكوري ودين عبانو دافين markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya kun shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysii way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu kunkii shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saas u eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal bari toolana waan kun shilin aabbo waan ka rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqada aba taqaanaa kun shilin ikan hooyadii buu ku yiri wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay oo aan way siisay hooyo moogta hooyo macaan oo keeno oo ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray bul maalin muddo kadib uu haddana yiri bal maantana aabbo fariid baaba noqotay oo tagay kun shilin siiyo war lacagta bariyahan aad iga gurto horta halkeed geysa way runta ma ku sheegaa aabba igu yiri ii soo shaqee hanu shaqa ma garanaye isagaan marka u geeyaa kunka shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo uu ku tuuraa isaguna markaas ay ku tiri war lacag la gubo anigu ma haye hor magaalada u gal odayga waa midaal yani midaal hatta tafhamu وشغلة تجي ضد مركب وحركة ما أنا قلت لسه واركي ورستو مالنتي مسات صوش قيساي وعين قاسو كل شيء لأنه والله شغلة تجو وأروح وحول سوق بنيبه وسوق قبطي لعقتي وري لعقت المسكوقي ما مركب أوكي أنا وذاقي أبو هو مركاسو يقولي هذا البراعي ويقول أبو لعقت الضبكة كاي لا لدي النبي صلى الله عليه وسلم markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu haddaan ku tuura kuwii horeba sawnigu gubayay ma yaaba taneetii hore way ka duwan tahay tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay mathalkaas shaygan marka uu maal iyo waqti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa marka diinta dadaalkeega diinta oo dadka la baraa waa dadaal diineed diinta oo dadka loogu soo baraarujiyo loogu yeedhaa waa dadaal diineed adiga lafahaantaada oo salaada jamca aad ku ilaalisaa waa dadaal reerkaaga iyo ubadkaaga oo diinta ilaahay aad ku tarbiyadaysaa kasbi xalaalana aad uga soo shaqaysaa waa jihaad waa dadaal waqtigaaga maalkaaga ardayga waqtigiisa inuu diinta barto ku bixinaya waa jihaad man kharaja fi talab alilmi fahuwa fi sabiili illahi xataa yarjica maalkaaga waqtigaaga ood waqti yar ka soo goysaa ood ilaahay dartii aad u baxdaa kolba tuulo kolba hayjad kolba mii kolba magaalo aad ilaahay dartii u baxdaa reerkaaga iyo ubadkaagana ay waxay kugu sii sugaan aad uga tagtaa waa dacwad waa jihaad reerkaaga dayac lagumana odhan nin baa nebiga u yimid oo yidhi awrkayga maan dabraa mise ilaahay baan u tala saartaa waxau nebigu ku yidhi awrkaaga dabro ilaahayna tala saaro markaad baxayso haddaad 4 bilood baxayso haddaad 2 bilood baxayso
haddaad bil baxayso haddaad sanad baxayso reerkaaga mas-uuliyad baa kaa saarana waxay biil ka dhiganayeen meel u saar inaad cidlo kaga dhaqaaqdaa caqliguna ma aqbalayo sharciguna ma aqbalayo haddaad aragteen ood maqasheen mid la yidhi reerkiisiibuu kaga dhaqaaqay bilaa biil kaasi waa tartiibtii dacwaddu garab maree dacwaddoo dhan maaha sidaas ogaada tartiibtii dacwaddu ayuu yar garab maray dee qolo walba qaar yar mushadidiin noqda oo iska leeyihiin soo ma oo yar nuura kaa u nuuray markaa laakiin manhajku maaha manhajku ma qabo in reerka la dayaca ma qabo manhajku waa manhaju nubuwa wuxuu qabaa nebiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaa rasuul inaan baxaan rabaa jihaadka waa cahdiga nebiga dagaalna waa loo baxayey markaasuu yidhi maxaad u baxaysaa ii sheeg wuxuu yidhi jannaan doonayaa labadaadii waalid mid ma nool yihiin markaasuu yidhi hooyaa ka nool buu yidhi ma iyadoo kaa raalliya baad ka timiday mise iyadoo safarkaaga aan ka raalli ahayn may safarkayga ka raalli maahayn buu yidhi soo janno ma doonaysid haa alzim rijlayha uma aljanna buu rasuulku yidhi ku noqo iyadoo lugaheega qabso u duub u khidmee raalli geli halkaabaa jannada ka galaysa adigu yahay caamadaan leenahay war masaajidada soo gala culummada ku soo xidhma salaada tukada naftiina tarbiyadeeya kaale ilaahay dartii jamaacadda u raaco naftaada soo islaaxi taajirka faqiirka hani oday iyo inan dhammaan ummadoo dhan diinta inaan ka shaqayno ilaahay baa noo doortay yaa inoo doortay huwa jtabaakum baa ilaahay yidhi huwa jtabaakum ilaahay baa ina doortay muxuu ilaahay noo doortay marka inaad diinta ka shaqaysaa laguu doortay ma aha inaad caabid noqoto keliya laa cibaadadu aday gaar kuu tahay salaadiyo soonka iyo zakadiyo xashku aday gaar kuu yihiin laakiin waxa ummadda anfacaya waa maxay waa dacwadda iyo tacliinta ummadda anfacaysa diintana sidaa aan soo sheegnay adduunyada waa ka ducana waa lagu helaa diinta laakiin dadaal baa lagu helaa inaku laakiin waan bedilay maanta haddaan soomaali naho waxaan leenahay adduunyadu dadaal bay u baahan tahay waa ka adduunyada u soconno waana ka u dhoofayna waa kuwa dhallinyaradeenii badaha iyo saxraaga libiya ay u dhammaadeen iska daba wareeg wadannada gaalada beri annagoo joogno ayaan mid baan ku nidhi war ilaahay dartii noo raac 2 bilood oo na raac 40 cisho wuxuu yidhi niman yahow dhowr iyo 20 sanaan joogay buu Yurub Denmark man dhowr iyo 20 sano joogay shaqo la'aan bisaarad wadankana dhawaan soo galay buu yidhi haddaan shaqo raadinayaa niman yahow culumoy shaqo ilaahay ii weydiiyay shaqo yar oo fiican buu yidhi annakii buu taalac noo raacayba إلا وأمدهم قري لقصة لسبوكته مركزان هذا قبل كلام تجني نحن هلا مركز يسقون يجري دل كام مرايكا كواحد كنا ولا هاي تضبي صد صنع بل طبعا برينا الرع والنفط هذا سوء إصلاحي وبالآخر هذا درين كيجي درين كي آخر إير قال إلهي الله سبحانه جوني مركز تضبي صد صنع ودن كجوجا بودي haddaan maanta dhinta kafan ma haysta buu yidhi waxaa la ii sheegay buu yidhi inuu Australia ka qaraxday Australia aan u dhoofayaayo qolaa nooli ururinaysa culumay ducada igu dar buu yidhi haye waa kugu darnay socodna waa ka soo noqonay annagoo Dubai habeen marayna airportka Dubai ayaan islaan waxaan aragnay hooyo iska warrama ma Soomaaliyeed baa tahay Soomaaliyeed baan ahay ma sha Allah hageed ka timid hooyo inamadan wiilashan Australia ku dhasheeno wadanka noloshiisa ma fahmi weyno dalkoogiyo Soomaaliya ayaan ku celinayaa bay igu tiri marka ay soo duceeyaan kii dalka joogay xaq u socdaa wuxuu ku duceysay Ilaahu Yurub mari gali kii Yurub joogay Ilaahu maru Mareykan gali North America gali kii Mareykan joogay Australia ay gaarsii kii Australia joogayna noloshii waan garan weyno he Soomaaliya ku soconnaa firaaq baan haysanaa dad meel fadhin kara ma nihin inaku
diintu dadaal bay ku iman adduunyadana waa inta ilaahay noo qadaro dee diinta dadaalkeega insha allah inaan ka qayb qaadano soo kulligeen diyaar ma nihin allah inagu anfaco saad noo soo dhaweysaan allah inii soo dhaweeyo bisha koobaad kolley sheekh cumar baa kelmad siin doonaaye sheekh cumar de annagu waan tashkiilinaaye tashkiilkii baan raacina in yar ha iga raalli ahaadaan in odaya nagu yidhi war wacdigii naayir uu macaan yahay bixitaanka maad ka reebtaan abuu yidhi marka meeshana sheekh xasan jazaahu allahu khayr wuxuu yidhi halkan waa markas buu yidhi ogow buu iga yidhi waa markasu dacwo weeyaan buu yidhi waa markaskiinnii ku soo dhowaada jazaahu allahu khayr allah barakeeyo ininkana allah ini barakeeyo dee waa mar walba laynii yimaadaayo hadda jamaacad calisanay uu wataa jabuuti ii weydaaratay bal insha allah ininkuna ijtimaaca jabuuti ee dhacaya bisha 10 ilaa kulle waa iska soconaayo socodka waa iska badan iska naqaanaaye bal ayaa niyoonayo le insha allah waan niyeysanahay inaan ka soo qayb galo oonu soo ducayna annakuna maasha allah gacanta u taaga anna gacanta ma goosanaye iska taaga gacanta waa laynii wada ducaynay